intooda badan waxay ku tilmaamaan yagleelaha dowladnimada DDS-ta casriga ah hoggaan guulaystay daacad ah oo hagar baxay iyo siyaasi gacanta u fadhido oo joog dhexe ku duulaya in yar oo aan la dhacsanayna waxay ku dhaliilaan hoggaan jilicsan iyo hagrasho. Mustaf Maxamed Cumar madaxweynaha deegaanka Soomaalida ma dhaba inuu horumariyay DDS iyo dadkeeda yagleelayna dowladnimo awood leh iyo dowladnimo sal adag oo meeqaam leh hal abuuray naqshadeeyay oo daah qaaday DDS-ta aynu maanta aragno mise hagraday oo dibdhigay. halkee ayuu ka soo qaaday deegaanka dadkiisa iyo dowladnimadiisa halkeese ayuu soo gaadhsiiyey oo marinaya maanta. kolkan waxaynu dul istaagaynaa bogaga taariikhdiisa hoggaaminta DDS ee 8 sano jirsatay maxaa u soo kordhay DDS iyo dadkeeda. codka maqalkaaga ku dhacaya waa Axmed Awga halkanina waa JTN ee soo dhawaada jaalayaal. kolka la sheegayo waxa qabsoomay waxa qasab ah in la ogaado maxaa ka horeeyay waxa la qabtay si loo helo halbeega isbedel ka dhacay. sidaas awgeed aynu si kooban u milicsano Mustafa ka hor maxaa jiray ka hor 2018 iyo ka hor imaashihii Mustafa ee deegaanka Soomaalidu. deegaanku wuxuu ahaa midkood ama kan ugu dib dhacsan dhammaan deegaanada dalkan Itoobiya xagga horumarka iyo dowladnimada. ammaan ahaan waxa aloosnaa bardoodankii TPLF oo wakiiladii daacadda u ahaa iyo been masheegayaashii deegaanka Soomaalida ugu qaybsanaa ay ku tumanayeen dhiigga dhaqanka iyo magaca dadka deegaanka. jeelasha la yaqaano iyo kuwa aan la aqooninba waxa eegaagay shacab kaliya dembigoodu ahaa inay ku nool yihiin deegaankooda miyi ilaa magaalo togaga laagaha iyo xidharka meel walba waxa xidhmo u wadhnaa meydad wadareedada shacabka aan la garanaynin waxa lagu laayay iyaguna garanaynin waxa lagu dilay. dadka deegaankana wiil iyo walaalkii ayaa la isugu dhiibay oo laba shaadh isku eryanayay. siyaasad ahaan deegaanka Soomaalidu wuxuu ku jiray liis madow oo loo yaqaanay agaar kaliyana waxa uu ahaa meel amarada militariga lagu tijaabiyo. diinta islaamka ayaa la isugu yimi oo salaada faralka ahi gaadhay heer ay dambi la isku qurgooyo noqotay. magaca Soomaalinimo ayaa sun iyo waabay ahaa oo qofkii sheegtaa ahaa dambiile argagixiso ah. caburka shacabkuna waxa uu gaadhay heer bukaanku dhakhtarka u sheegan kari waayo halka laga hayo. xaaladaas jooq la'aanta iyo jahawareerka ah ayuuna ku jiray deegaanka iyo dadkiisu ilaa laga soo gaadhay sanadkii 2018 ee isbeddelkii siyaasiga ahaa dhalan rogay dalka. kolkii isbeddelkaasi soo gaadhay DDS Agosto 2018 waxa meel gaaban ka soo baxay talada deegaankana la wareegay midkood aqooyahankii dhibanaha u ahaa foolxumooyinkii deegaanka ka dhacayay kuna jiray intii naftooda ula carartay dibadaha. Mustaf Maxamed Cumar weeye ayaa kolkaas noqday madaxweynaha DDS. haddaba maxaa isbedelay 8 sano xilka ugu sareeya talada 8 milyan ee deegaanka ku nool hayo madaxweyne Mustafa. bilowgii kolkii ugu horeysay ee Mustafa la wareegay xilka deegaanka waxa uu qaatay mikrofonka waxa uuna cod dheer dhagaha shacabka ugu riday weedho ay maqalkooda oon u qabeen oo dareenka taabtay una dhignaa waxaynu nahay Soomaali xurmo leedahay diintooda islaamku dad baynu nahay dalka xuquuq ku leh dowladnimana ku raadsanaya imika laga bilaabana af walow hadal itaalka laga furay farigiye xilka nafuulayna nagula xisaabtama ogoline. kolkaas waxa deegaanka ka bilowday dib u dhiska dowladnimo waxa ayna dadku dareemeen nolol aan qashqashaad iyo khayraad lahayn. waxa qufuladii laga furay masaajida oo salaadaha jamaca lagu tukaday cod dheer. waxa la aloosay golayaasha iyo malcaamadaha quraanka. waxa ooda laga qaaday shacabkii dulmiga ugu garbaduubnaa jeelasha. waxa sare la suray calankii deegaanku lahaa ee laga dooriyay. waxa la tuuray xarkihii kaantaroolada lagu kala ilaalinayay Soomaalida oo la yidhi diirka Soomaaliga ahi isku furan hadeed
waxa dib loo dhisay nidaam dowladeed oo sal iyo baar ebiyan waxaana miiska la saaray qorshayaasha hortabinta leh ee dhisida dowladnimo DDS ka hirgasha oo dan u ah dadka iyo deegaankaba horumarkooda. Qodobada ugu waaweyn ee miiska hortabinta la saaray waxa ku jiray nabadgelyada deegaanka. Dhanka difaaca ammaanka deegaanka waxaynu xusi karnaa sanadkii 2022 iyo duulaankii indhala'aanta ahaa ee argagixisada shabaab ku soo dhaqaqameen xuduudka Yeed iyo Aato. xilligaas hal mar waxa laga warhelay madaxweyne Mustafa oo kursiga dhigtay furinta hore ee ceelkari halkaasna ka hagaya dagaalkii lagu baacsanayay qushaashka ee ciidamada iyo shacabka DDS hal mar gacanta u qaadeen. halka uu madaxweyne Mustafa ka galay dagaalka ayaana noqotay barta midaysa dareenka dadweynaha DDS. xilligaasna jabkii qushaashka marin habowsan ka gaadhay DDS waxa uu gaadhay heer ciyaalka afdheer ay biyaha ku dhaansadaan dhabarka fallaagada shabaabka kana daadsadaan birqalaxdii iyo baaruudii ay deegaanka ula soo gurguurteen. ammaanka gudaha markaynu eegno xukuumadda madaxweyne Mustafa waxay xoogga saartay in deegaanku helo jawi nabdoon oo dhidiba adag ilaa DDS noqday deegaanka ugu ammaanka badan dalka Itoobiya iyo geyiga Soomaalidaba. horumarka dhismaha jidadka ayaa ah astaanta ugu weyn arag ahaan isbeddelka horumarka Mustafa hagay. waxa xub dhacsaday magaalooyinka deegaanka laga bilaabo Jigjiga, Goday, Qabri Dahare, Dhagaxbuur iyo Fiiq. waxa dib loo dhisay naqshadooda la bedelay xafiisyada dawladda iyo adeegsiinta shacabka. waxa la sameeyay biyo-gelino iyo biyo balaadhino magaalooyinka waaweyn ilaa degmooyin iyo tuulooyin. waxa la iibiyay cisbitaalo lagu qalabeeyay adeegsiin iyo agab caafimaad. waxa la iftiimiyay magaalooyin iyo degmooyin badan oo korontadu u baxaysa. waxaana hirgalay horumarin kaabayaal leh halbeeg iyo bar laga sii ambaqaadi karo. dhanka siyaasadda deegaanka Soomaalidu waxa uu ku milmay jilba culusta jaangoysa siyaasadda qaran. madaxda Soomaalida ayaana kolkii ugu horeysay kuraas waaweyn oo tiro ah ka hantay xilalka federaalka. waxa si buuxda maamulka Mustafa u fadhiistay miisaska Itoobiyaan ku kala goosanaya masiirkiisa waxna ku qaybsanayaan. deegaanka Soomaaliduna waxa uu noqday dawlad ku jirta safka hore ee dawladaha federaalka Itoobiya ee leh miisaanka iyo maamuuska lagana haybeysto. siyaasadaha uu hogaamiyeyna Mustafa waxay gaadheen heer ay qayb weyn ka noqdaan jihooyinka siyaasadaha qaranka Itoobiya. halganka dhanka siyaasaduna waxa uu gaadhay heer Soomaalidu si weyn uga muuqato miiska ay Itoobiya kaga arinsanaysay masiirkeeda ee wada hadalka qaran maamuus iyo miisaano ku yeelatay oo talada iyo go'aamadeedu tixgelin weyn ay yeesheen. dawladnimada Mustafa waxa uu hirgeliyay nidaam dawladeed oo isku xidhan hogaamin hal meel looga arrimiyo hal jiho qaadata hal amarna maamulo hogaamin kala dambaysa hay-ado iyo xafiisyo kala madax bannaan guddi ku shaqayn wada shaqayn iyo isla xisaabtan dhab ah. baarlamaanku lamadiisa ku qiimeeya waxqabadka xukuumadda kormeera oo dabagala una sheega halka liigaysa ee u baahan gufaynta kolba iyo hanti dhowr fagaarayaasha ka cadeeya hebel walba oo xil haya iyo xafiis walba ama maamul walba waxa ku maqan ee musuq ah. DDS maanta waxa ka jira jaamacado islaami ah maraakis iyo madrasado quraanka iyo islaamka idilkii lagu hoorinayo calanka babanaya waa astaantii Soomaalinimo ee dadkii dhulkaba amaarada u ahayd. reer DDS maanta waa halbowlaha qarannimada Itoobiya. dhinac kalena DDS waa bundada isku xidha geyiga Soomaalida iyo buurleyda Itoobiya dhinac walba oo siyaasadda nabadgelyada iyo wada noolaanshaha ah. 8 sano kadib oo Mustafa Maxamed haya xilka madaxweynaha DDS halkii uu ka soo qaaday aragnay halka uu marinayana aragnay aynu sugno halka uu kaga tagi doono inteena nolosha ku sinto.